markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laak sidaanay ilmuhu uga qosliyaan ikhiyaaray weydii salaame salaanta waa kaa maqalnay xaa kaloo garab yaal salaanta hoobi isibahan daba dareerna ku ogaadni midina wayga su'aale bannaanbixii cabsidiisu magaalada gelgishay oo laga digey ma uusan dhicine maxaa baajiyey war bannaanbixi ma baaqan awalba facebookaa laga soo abaabulay haddana facebook life ayuu ka socdaa waakaas fayska leefka ku socdee ka leefleefahe war waxa laba habeen iyo laba maalin dhan laga cabsinay facebook life kelimiya war maylaaray hamasho absuu habaarna taagdaru war kala mudun hamiin dhowna niikali biyay una maaba aragna ee sheegi warnimayo kaalay horta dalkeennu ma facebook buu ku yaalaa war ma haysaane dawladdu shalay waxay soo bandhigtay ciidamada ka hortagga rabshadaha waxaana ka hadla taliyaha ciidanka booliska wuxuuna yidhi ma ogolin rabsho iyo buuq iyo balaayo afhayeenka gobolka banaadirna wuu hadlay bannaanbax sharci darraha ayuu ka digey culamaa udiinkuna way hadleen sidoo kale ay ka digeen marka haddii digniintii shacabkeenu qaatay sow guul maaha wartaasi waa guule waxaaba yaab leh adoo dalkaada jooga nin dibadda jooga ha kaaga sheekeeyo iyo adoo xaaslaa nin iskaabula amuuraxaas ha kaaga sheekeeyo ayaa la yaab leh awalba shacabkaanu dhibaatada waa u joogeenoo midna bannaankow bannaanbaxya ka soo abaabulaa midna hoonow barri qasiiya midna qaraxow buka siihaheeho bannaanbixii laga booqo labaajiyaan bogaadiiha bannaanbixii laga booqo labaajiyaan bogaadiiha war waxaanaad shubaysaan ceebtiinna maaha waa caadadii warnimayo falalka alxadarrada saacadba saacadda ka dambaysa waa soo badanayaan degmada wada jir qoys gurigiisii jooga ayaa inta loola soo galaa rasaas lagu hirqiyey war maxay galabsadeen war annoolataya galabsadeen may kale galabsadaan warkaan naga dhex gelinine 5 dhimashaa waa la sheegay dhaawacuna waa ka badan yahay qoladii dadka xasuuqdana gaariday ku baxsadeenaa la yidhi lamana yaqaan war ma haysaane dhacdo kaloo la yaab lehna waxay ka dhacday magaalada beledweyne nin dhallinyaro ah ayaa timaha wuxuu u soo xiirtay si qaab daran isagoo socda ayaa madaxii dab ka kacay masaajiduu ku cararay markaasaa biyo looga damiyey ilaahayow madaxa hayga holcinin indhaha iyo ilaahayow madaxa hayga holcinin dhagaha iyo indhaha iyo sanka iyo afkaan ku sii dhaahi war madax ilaahay gubaya biyo ma damin karaane wax noo sheeg war masiiba way jirtaaye ilaahay hayna mootiyo war niman yahow guddoomiyaha guddiga madaxa bannaana doorashooyinka qaranka xaliima yarey shalay waa tii baarlamaanka hor tagtay waxayna tiri caqabado badan baa hor taagan in la qabto doorasho qof iyo coda waayahayo guddiga madaxa duubanna hay dhaheen warkaan ha naga qasine waxay tidhi caqabado badan baa hor taagan in la qabto doorasho qof iyo coda oo ay ugu horreeyaan deegaanada al-shabaab haystaan iyo nidaamka xisbiyada oon dhammaystirnayn war doorasho qof iyoonay od iyoonay shaqada dawladda markii la fiiriye inoo ulees wiinkoya meeli waaba ka jarti war doorashada qof iyo codkii waxay ka dhacdaa somalilan weeyaan niyow wasiir ku-xigeenka dastuurka wuxuu yidhi xaduudyada iyo sharciyada ay ku dhisayeen maamul goboleedyada qaarkood dib u eegis ayaa lagu samaynayaa war sharcigaas oo dhan waddada loo marayo xaggay ku taallaa aan su'aal jawaab mudan soo jeedsha maante jidadkiyay ka xidhan yihiin haddii dhagaxya lagu jaray qaraxii ma joogsadi war jibaab waatu oo lagansoy lanki taleefon jay aydiisinka jirna ka hirinyin wareeg kale wareeg ama furu waa toddoba war nimanyahow waxaa la yidhi dawladdii 60kii waxaa lagu eedan jiray musuqmaasuq dawladdii militarigana waxaa lagu eedan jiray keligii talinimo dawladdii cabdiqaasimna waxaa lagu eedan jiray alislaax dawladdii cabdulaahi yuusufna waxaa lagu eedan jiray etoobiyaan dawladdii sheekh shariifna waxaa lagu eedan jiray aala sheekh dawladdii xasan sheekhna waxaa lagu eedan jiray damul jadiid dawladdanna waxaa lagu eedeeyaa jidka adag marka horaa waxaa loo yidhi dalka maamulkiisa iyo mas-uulkii la doortaba haddaad maya tidhaahdaan ma malaa'ig socotaa madax looga dhigaya aryaadhaha malaa'ig iyo musuq maasuq kala dheer war saas maahane malaa'ig iyo qabyaaladu kala dheer war adduunyada bini'aadankaa khaliif looga dhigaye maadinkaa ka qaadaya war waa durudaanna xildhibaanada qaarkood waxaa lagu eedeeyey inay soo damiintaan al-shabaabka war hadda ka hor balloodii la xidhay hal xildhibaan oo sax soo daaya waa
waa la waayey shabaab maxay u soo daynayaan war dagoonka kanow xildhibaanada sheegas loo wantiye ma fadaayan aana booradii hoos ku qasadaayan maday isaaqow berigana ma lo awan dhashaad noo keentay oryaadheen shabaab godkooda bay u galeen waxaa yidhi ra'iisul wasaare khayre oo maanta tababar ciidan kumaandoosa u soo xidhay waryaadhaheen waxaana shubaysaan anu garan maayee madaxweynahayga jumhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi xildiid wuxuu ka degay alimaaraat alcarabiya almutaxid waana markii saddexaad u tago ilaa intuu dalka haystay warwar ma haysaane maamulka puntland dugsiyada qur-aanka ay takfiir ka raadinayaan war may takfiirkan ka meeraysdan rego bilaantu kufsada uma ku gobadaana hadiyo run sheegayan war kufsiga macal hay'adihii waa ka bannaan baxeen war isxilqaan xag ugu dambeeyey war abwaan guura waxaan ku ogaan inuu turkiga iyo ingiriiska aadaye dadkan jarmalka iyo giriigga sheegaya ma ku riyoodeen war ingiriiska ma tiyaatarkan laga dhisi rabaadana war tiyaatarka malka dhisa nimanka iyo tiyaatarkan guura nabad Allah yeele